بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وعشرة إخوة يمكن الحلم عشرة أيام راسك عبالي قاعدين يسين بكالة بركة امتحانك واديار waxaan arki doonaa configuration ku samaysan network-ka computer-kaaga uu leeyahay. Network-kan disconnect baan ka dhigaynaa, markaas aan soo galno waa arkaynaa. Waxaan tusin doonaa ardayga markuu ka qaldan yahay saa u saxan karto ama configuration sida PC-ga lagu samayn karto. iyadoo arday fara badan ay ka faa'iideysan doonaan casharadan A+ ka wixii macluumaad ardayda online-ka A+ waxay casharadan waxay igala soo xiriiri doonaan somalisaramadio.com. ardayda kale ayagana toos casharadooda casharo kala duwan baa halkan ka faa'iideysan karnaa, waana very important. Operating system-yada aan isticmaalino waa kaan. Marka maanta waxaan arkaynaa network adapter-ka inaan fiirino sidii uu nagu saxsan yahay, haddii driver naga maqan yahay, haddii kale inaan maanta aragno configurations aan ku samayn karno about network ku saabsan PC-geena. Marka waan soo gelayaa, waxaan imaanayaa start button-ka, yaan waxba hadal ku dheeraan. Halkan toos waxaan imaanayaa control panel-ka, halkan waxaan imaanayaa network ila soco, halkan waxaan imaanayaa view, waan boobsiinayaa view network computer and devices. war fiiri buu ku leeyahay oo dib u eegis ku sameeyay network-ka device-kan uu leeyahay. macnaha device-kan waa computer-kani network sharing. okay, halkan markuu ku keeno halkan wuxuu kugu tusinayaa computer-kaagii networking-kiisii. marka advanced sharing haddaa fiiriso computer-kaagii turn off buu yahay, turn on iyo turn labada naqshadood baa loo isticmaali karaa. printer-ka haddaad rabin inaad ku isticmaasho internet-ka aad ku xiriirsato, marka asiga waxaa leedahay off baas ka leedahay. kuwa kale on waa dhihi kartaa, save nidaamkaas oo usoo bedelin kartaa. okay, connect baa dhihi kartaa, internet-ka igu xiriiri. halkaa internet uu noo joogaa soo maha, connect baan ku leenahay. okay, cashirkaa markaan barano suu noogu soo qabsado arag public way internet-kaan isticmaalino wireless ahaan buu noo siinaya. okay, maadaama aan xarig wadan, marka waxaa dhihi kartaa isitusi qaabka adapter-ka aan isticmaalayno kanaan isticmaalaynaa. marka ma isticmaalino xarigaasi oo ah RJ45 ma isticmaalino oo laga isticmaalo telefoonada landline loo isticmaali jiray, wuu ku xirmaya asna. kan uu wireless ahaan baan isticmaalay. okay, markaan aragno kan noqo marka halkaan adapter-kii marka wuxuu ku leeyahay manage your wireless. halkaan marka wireless-keeni ma loo leeyahay password maya waa kusoo xirnay, waa kii mobile-keena aan ku xirnay kaliya. okay, intaas fahanay. maanta waxaan arkaynaa marka sidee u sixi karnaa computer-keeni cashirkii ahaa waan fiirinaynaa. marka halkaan markaan joogo network sharing cashirka hadda boobsiis kugu noqdo ku soo celi ardayow waxaa laga codsanayaa cashirka inaad dib ugu soo celisaa. ardayda kuwa advanced-ga aan la hadlaynaa troubleshooting baan sameynaynaa. ila soco adapter-ka saan u soco iyo adapter-rada drivers markay wataan iyo markaysa wadan baa si fiican idinku sheegi doonaa. marka kan waa inaad garataan baa laga yaabaa, fudaydkan inaa imaan kartaan, laakiin kan see loo saxaya markaan setting ku sameynayo adapter-keygii. kan anaa isticmaalayo waa kan, laakiin dad baa waxay isticmaali karaan ama adapter-kiini inuu marka hore idin diido computer-ka. marka hore adapter-ka kan inuu idin diido kan. marka halkan kan ka bax. marka macalinka kan laga rabaa inuu configuration-kan idin soco advanced mode. halkan fiiri suu ku tahay daaqadana la soconaysa. daaqada markaa la socoto baad sixi kartaa driverska inuu sax yahay, waa kuu sax. driverka intuu kaa maqan yahay waa kusoo shubeysaa way driver baa kaa maqan. marka lagu leeyahay ay dadku leeyihiin drivers baa kaa maqan, driverada wax kale ma aha. drivers kan uu rabaa oo la shaqeeyo network-ka noocan model-ka hadduu computer-kaaga u yahay way advanced sharing-ka fiirinaysa. driver markaa details baa sii fiirin doontaa. broadband 802 network adapter-kiisa kaas weeye. power and manage allow way computer to turn off this device server. okay, detailskii waa kaa. marka iyadoo cashirada nagu soo socda A+ka network inay u badan yihiin, marka maxaa la sameynayaa maadaama cashirada nagu soo socda network adapter-kan haddaad sixi karin ma ka hadli kartaa. waa qof meel hoose jooga raba inuu ka hadlo meel sare. soomaalidana saasay u badan yihiin, marka ma la rabo waa inaa hoostaan si fiican u taqaana. muxuu computer-kan horta configuration-kiisa waa sidee, yaa soo configureeyey, yaa configuration kusoo sameeyey, yaa soo saxay wey macnaha configuration-ka, oo yaa soo install gareeyey waa configuration yaa kusoo sameeyey wey macnaha yaa soo saxay. marka sidaa darteed configure macnaha soo sixitaankii lasoo saxayey miyaa qaladkaa jiray mise haddeer qaladkaa yimi, maxaa isbedelay. okay, intaa waa inaad marka hore aad muhiimad siisaa. halkaan
advancega auto waa inuu ahaadaa value-gaaga la soco ardayo change baa imaanaya halkan wuu ku joogaa program marka halkan ever buu ku noqonayaa hadduusan driveska ku joogin marka driverada la isticmaalo la soco hadba driver baa la isticmaalaa marka haddii disable network uu ka yahay haddii networka oo computerka isticmaalaysa PC-ga ama laptopka oo u baahato inaad bedesho marka rename listiga kuwan rename magacyaa ka bedeli kartaa marka view waxaa fiirin kartaa statue-ga connection-ka isticmaalaysa statue-giis muxuu yahay waa kana inuu shaqeynayo inta la dhaaqowda client-igi receive waa la helayaa wuuna soo gaarsiin karaa senti uu soo dirayaa package-ka soo dirayo casharadan oo waaweyn baa idin soo wadaa oo aan ugu talagalay ardayda package-ka markuu senti soo diro uu kusoo gaaraya network-ga caadi kusoo gaaraya laakiin waxa weeye awood buusan lahayn oo wuxuusan ahayn access ma laha okay active way network-kaaga laakiin ma laha wuu kusoo dirayaa package-kii internet-ka uu ku imaanaya laakiin ma lahaanayo wuxuusan lahaaneyn waxa la yidhaahdo wuxuusan lahaaneyn waxa la yidhaahdo awood buusan hadda maanta loo lahayn okay wireless-kii dooro wireless-kii qaabkaan connect automatically wuu kusoo qabsanayaa network is this range enable WAN iyo LAN waa taqaanaan iyo WAN waa casharo horaan kusoo qaadanay ardayga marka markuu daaqadan si fiican u barto wuu geli karaa cashiradeena kale IP-ga la isticmaalaya IP version 4 address saas oo la soconaysa IP version 6 iyo IP version 4 labada waa la isticmaalaa okay iyadoo physicalka waxaa idinku tusinaya waaye addresska physicalka ACEDD macnaha waa lagu soo gaabiyey laakiin waa iyadoo waxaan baran doonaa oo physical address computerka kan uu leeyahay weeye iyadoo la isticmaalayo IP address computerka ma laha internetka ku siinayo shirkadda internetka IP-yada iska leh marka IP address computerkaaga yeelan doona laakiin physicalkiisa hadda aan isticmaalayno waa S4C ED D iyo DEF iyo 3576 okay iyadoo cashar fara badan soo saarna loo isticmaalaa IP version 6 baa jira DNS server markan ma isticmaalayno maanta waxa aan isticmaalayno hadda waxaa la isticmaalaa weli waxaa la isticmaalaa IP address-keena siiyeen oo shirkadda hadda internetka ka isticmaalayo waa 192.168.43.143 wey IP address-ka siiyeen marka subnet maskiga uu wato cashirada internetka waxaan ku sharixi doonaa oo kale markaan ka hadlayo Cisco Packet Tracer casharadiisa aan sharixi doono casharo hore Cisco Packet Tracer aan soo sharaxay way ku jireen marka 255.255.2.0 way marka subnet maskiga 255.255.2.0 markuu yahay waxaan u garanaynaa IP address-kan inuu yahay IP address-yadu waxay kala lahaayeen waa garanaysaan marka IP waxa weeye wuxuu kala ahaan class A class B class C class C class A iyo class B class C marka inuu yahay iyo class A inuu yahay ardayga waxaa u kala cadeynayo subnet maskiga iyadoo details waxaan kaga hadlay cashiro aan kaga hadlayay networking-ka oo badan baan kaga hadlay taasi okay sidaa darteed cashirkeena maanta intaa haynoo joogo sidaa darteed fi amaan allah waa engineer maxamed axmed bare casharadiisii networking-ka ahaa kuwan waa basic hoose kuwa advancega Cisco aan ku sharxaynana internetka waa ka fiirin kartaa markaa Cisco aan sharxayna cashiradeedii physical address computerka uu leeyahay IP address-kii waan aragnay subnet maskigan una siiyey shirkadda ayna siisay waa aragnay IP address-kaba IP address version 4 inuu yahay waanu aragnay version 6 baa jira marka sidaa darteed iyadoo cashiro fara badan aan soo qaadanay hadba tilaabaan sii maraynaa sidaa darteed fi amaan allah wasalaamu calaykum